السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أنتي بملك كسته وأنا قد أوانيسان هالكني وهم دودو أنا وحنا يا عبد الرحمن waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabto meel kastoo ka daawanaysa haddii aad nala joogtay waad mahadsan tahay ee barnaamijka saaxiibada iyo Soomaaliba la wadaag haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo channelka subscribe saar barta Facebook haddaad nagala socotana follow soo dheh waa mar kale oo inuu hawada dib ugu kulannay inaga oo ka soo gudubnay sooyaalkii iyo xeerkii dhaqan ciise qayb kamid ah buugaagta laga qoray iminkana waxaynu halkan ka bilaabi doonaa buugaag huwan culum aad u fara badan buuga aynu ku daafuri doono oo maasha Allah uu qoray ninka la yiraahdo Qoraa Ibrahim Ahmed Ali ninkaas oo hayna buugaagtiisa oo badan cilmi aad u fara badan oo gudihiisa ku jiro oo inaan mar iyo laba bil iyo sanad midnaba inaan ku afmeeri karin ayaynu jaantus wanaagsan ka samayn doonaa haddii la yiraahdo oo aynu doonayno in baldaayarta Soomaaliyeed ogaadaan meesha ka yimaadeen waqtigaaga in yar oo ka mid ah dheerayn dabeedna markaas soo jeedso si aad u ogaato qofka aad tahay haddaad tahay qof Soomaali ah sooyaalkaaga iyo taariikhdaada meeshaad ka soo jeedo dunida aynu joogno qof kastoo Soomaali ah wuxuu marxaati ka yahay kaalinta maanta ay Soomaalidu kaga jirto balse culumtan maanta aan gacanta ku haynay waa kuwo ku horseedi doona inaad ku ogaato qofka aad tahay markay timaado dunida waxaa tahay hogaankii dunida marka koobaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aadanaha markii uu keenay dunida ee nabi aadam abuurayay wuxuu malaa'igtiisa u sheegay inuu dhulka u samayn doono ama adduunka u samayn doono khaliif marka waa maxay khaliif waa qof mas'uuliyad meel ka ah raaci ka ah mas'uul asagu ka ah isaga lagu og yahay in alla inta waxa ku guda jiraana isaga ay u shaqeynayaan marka koorta aadamahaas ayaa tahay aadamuhu saahawsanaday haddana midkii waajibaadka gaarka saarnaayeen muslimka abaatahay haddana markii sooyaalka taariikheed la fiiriyo hogaanka qofkii soo hayn jiray baa tahay isjiijidka iyo isbursiga iyo sadkala bursiga aadanaha soo kala dhexmaray inay ina faquuqeen ina booseen biya kama dhibcaan weey laakiin markaad sooyaalka aad dib u fiiriso waxaynu nahay hogaankii dunida yaynu ahayn haddaynu Soomaali nahay culumtani waa kuwo ku faa'iideynaya meesha aad ka soo jeedo iyo meesha aad ka timid iyo wixii aad haan jirtay buugan yarkee gaaban baynu ku bilaabi doonaa buugani waa kaltirsiga Soomaalida kaltirsi marka waa maxay kal waxaa la yiraahdaa kaligeed marka la eego ka shamooyaha lagu tumo markii shay loo fiiriyo kalna waxaa la yiraahdaa waqti soo wareegay oo la tirinayay kaltirsi waxaa la yiraahdaa xoolaha marka la waraabiyo ee ay soo oomaan ee haddana la waraabinayo ceelashaas ay Soomaalidu ku soo aroorayaan wuxuu ahaan jiray maadaama ceelashu yaraayeen in dadku isugu yimaadaan si loo kala duwo xisaab baa la qaybin jiray xoolaha reer hebel xilliga imaanayaan marka waa kalkii geel reer hebel baa la oran jiray arigu kaltirsi buu leeyahay arigu inta wanaagsan wuxuu qadaa 8 iyo 9 loodu 3 bari ka badan ma qato wixii ta ka badani dhib ayada ku tahay haday weli joogtana maba ama dix joogtana maba tirsato laakiin markii biyo la'aanta la joogo arigu 9 ka badan waa dacati loodu 3 ka badan waa dacati geelu 5 iyo 10 ka badan waa dacati laakiin ka badan buu qaadi karaa taasa marka kaltirsiga la yiraahdo kaltirsiga laakiin hadda aynu u jeedno waa maxay waa midka aynu taariikhda Soomaalidu ay leedahay u tirsano waxaad ogtahay maanta hadii lagu weydiiyo dhalashadaada midda ku qoran ama midda aad garanayso exactly inaad dhalatay ama lagu hayo waraaqda dhalashada ama waalidiintaaba ay ku sheegeen waxaa la hubaa inaad isticmaali doonto taariikh markaad sheegto sanada nooca bishaas maalintaas aan dhashay
lagu garan kara da'daada. laakiin haddaad Soomaali tahay taariikhdaasi waxay noqon doontaa midda miilaadiga ama midda hijriga ah. hijriyadu waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu Maka ka tagay oo Madiina aaday ee uu qur'aankuna soo degay 13 sano qur'aanka markuu soo degay kadib buu Maka ka tagay Madiina aaday 10 sano kadib hadana qur'aanku degay 23 sano ayuu qur'aanku soo degay. miilaadiguna waa dhalashadii nabiyullaahi ciise calayhi salaam baa laga soo bilaabay midaasaana dunidu inteeda badan maanta ay tirsataa. way jiraan ummado tirsiya gaara leh, haddaba Soomaalidu kal tirsiya gaara ma leedahay? su-aashaas waxaaba laga yaabaa inaad weliga isweydiinin. waxaad ku kortay ood ku aqliyeysatay ku gaamurtay iskuul ku aaday adiga oo taariikh miilaadi ah oo dad kale leeyihiin la qoro iskuulkana lagu dhigo waalidiintana ay ku qoraan adna aad xasuusan tahay waad ku dhex barbaartay. saa daraadeed baahi gaara oo kuu qabatayna ma jirto, laakiin haddii dowladnimo iyo ummadnimo ay jiri lahayd waxyaabaha u horeeya kow la soo celin lahaa ayay ka mid tahay. Soomaalidu kaltirsi gaara ayay leedahay. haddaba kaltirsigeeduna maanta sanadku meel buu marayaa, bishuna maanta meel bay maraysaa, dharaartuna maanta meel bay maraysaa. haddaba intaynan sanadka aynan uba teginba Soomaalidu bilaha uu sanadku ka kooban yahay 12 magacyo miyay u taqaanaa? bil walba oo sanadka 12 ka kooban ee Soomaalidu magac bay u taqaanaa iyadu ay leedahay oo aan ahayn January oo aan ahayn Rabiic ama Muharram midna aan ahayn bay Soomaalidu leedahay. maalmaha isbuuca ah ee 7 ee bisha lagu tiriyo haddaba Soomaalidu magacyo miyay u taqaanaa gaar oo aan Arbaca Isniin aan ka ahayn ama aan ahayn Tuesday, Wednesday, Thursday aan ahayn? Soomaalidu waxay leedahay toddobaadka magacyo u gaara. arrimahaas si aad u ogaato Soomaalidu kaltiriskeedu waxa uu yahay ayaa buugan ka faa'iideysan doonaa. haddaba waqtigaaga Soomaalidu wax ma akhrisatay waxbay dhageysataa adoo shaqaynaya dhageysa muuqaalka, adigoo fadhiya dhageysa muuqaalka, adoo gaadhigaaga wata dhageysa muuqaalka. ka faa'iideyso maadaama luqadda aan ku hadlayaa af Soomaali tahay, ka faa'iideyso buugan. haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso buugan haddaba iyo cilmiga ninkan sheegayay ma wax jira? kow, buugan waxaan ku tusayaa 5 waaxood oo muhiim Soomaali markii la eega ah oo tasdiiqiyay ama shaabada ku dhuftay baan ku soo qabanaya. jaamacadda Djibouti buugan iyo kaltirsiga Soomaalida shaabad bay ku dhufatay. kaltirsiga Soomaalida jaamacadda Djibouti hoosta ka xariiqday inuu wax soo jiray yahay, wax jirana yahay, lana yaqaano. waa hagaag. waxaa kaloo wehelisa Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Akademiyadda Cilmiga iyo Dhaqanka iyo Suugaanta istaamba ayay ku dhufatay iyaduna. jaamacadda Jigjiga ofiska madaxa Jigjiga ama gudoomiyaha jaamacadda Jigjiga shaabad ayuu xafiiskiisu ku dhuftay kaltirsiga Soomaalida habkii la isugu raacay. qaybta dhaqanka iyo suugaanta ee jaamacadda Jigjiga ayadana istaambaha ayaa lagu dhuftay. xafiiska dalxiiska iyo dhaqanka ee dowlad deegaanka Soomaalida asaguna istaambaha ayuu ku dhuftay ama shaabada ayuu ku dhuftay. Akademiyadda goboleedka af Soomaaliga ee loo yaqaan AGA Intergovernmental Academy of Somali Language waa tii Djibouti lagu qaban jiray dhammaan gobolada iyo dowladaha iyo Soomaaliyeed aqoon-yahanadooda ku xeel dheer dhinaca luqadda iyo suugaanta iyo baaritaanada noocaas ku sameeyay ku Djibouti iskugu tagay muddo dheer. waa kuwii halkaa ku shiraayay, waa kuwii soo saaray kaltirsiga Soomaalida ee jiray, waa kuwii soo saaray. dabeedna intaas oo maanta ah maxadiyada ama marjiciyada Soomaalida maanta joogta meelaha ugu sarreeya u laaban karaanba kaltirsigaas iyo cilmi baadhistiisaba hoosta ayay ka xariiqeen. waa hagaag. magacyada dadka faraha badan ee meesha ku qoran laftoodu waa qayb guddiga daraasaadka kaltirsiga
ka mid ah halkan bay ku qoran yihiin. ayaguna waa 20 qof oo ka kooban inta aan ku sheegay Soomaalida ku nooshahay Dirdhaba deegaanka Soomaalida magaalada Muqdisho oo dad kala duwan ka yimaadeen magaalada Hargeysa sidaas ay ugu wada qoran yihiin in alla Djibouti inta Soomaalidu ay degtaba aqoon-yahanada isaga yimaadeen. haddaba kaltirsiga ayaa jira. khayralaas iyo walaalkeen qoraa Ibrahim Axmed Cali ayaa buugan qoray. haddaba buugan ayaynu cashiro isdaba jooga ka qaadani doonaa. waxaad faa'iidi doontaa af Soomaali aadan horay u aqoonin. waxaad faa'iidi doontaa taariikh aadan horay ugu baraarugin. buugani wuxuu taabanayaa xataa Soomaalidu meesha ay ka soo jeedo asal ahaan ayuu isaguna laftiisu u taabanayaa. haddaba hordhaca buugan inta aynaan gelin ayuu qoraaga buugu wuxuu u mahadceliyay dad gaara mudan markaa inaguna buug inaan ku bilowno oo aan meesha ka sheegno. waxaana kow ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle. waxaa isagana ku jira taliye sare ee ciidanka ilaalada madaxtooyada mudane Maxamed Jaamac Ducaale. si gaar ah adeer ku salaamaya adiga waadna mahadsantahay boqolkiiba boqol. aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa hadiyadan iyo buugaagtan akhrinayo inta waa kaaga mahadcelinaya. waxaa ka mid ah mudane Xuseen Maxamuud Rooble ayaa isaguna yaa ka mid ah. waxaa ka mid ah Cornel Mustafa Cali Xandulle ayaa ka mid ah. waxaa ka mid ah madaxa guud ee jaamacadda Djibouti Dr. Jaamac Maxamed Xasan ayaa ka mid ah. waa hagaag. waxaa kale oo maaragtay ka mid ah madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar. waxaa ka mid ah madaxweynaha ku-xigeenka deegaanka Soomaalida mudane Ibrahim Cusmaan Faarax. waxaa ka mid ah wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska Marwe Warsan Cawil Maxamed. madaxa jaamacadda Jigjiga Dr. Bashiir Cabdullaahi. wasiir ku-xigeenka xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska mudane Salaad Dabar. gudoomiyaha akademiyadda cilmiga dhaqanka iyo suugaanta mudane Cabdulqaadir Nuur Xasan. agaasimaha maxadka daraasaadka af Soomaaliga iyo suugaanta ee jaamacadda Jigjiga mudane Maxamuud Macalin Cabdullaahi. waxaa isna sidoo kale abwaan Axmed Sheekh Cabdiraxmaan Cabdille Professor Cabdille Cumar Mansuur al-Mansuur wadgaran aqoon-yahankaas. Cabdullaahi Xasan Sheekhaalow aqoon-yahankaas. xoghayaha guddiga af Soomaaliga mudane Cismaan Macalin Ibraahim. Suldaan Cabdi Siyaad iyo Cabdilqaadir Cabdi Axmed Juba. raggaas ayuu u mahadcelinayay. hordhaca buugan wuxuu ku biloawmay in kaltirsiga uu yahay wax soo jireen ah oo ummad walbaba ay leedahay laakiin Soomaalida keedu maanta ka ugu facweyn weeyaan. horay markaynu xeer Ciise akhriyeenay waxaynu sheegnay xeer Ciise inuu 700 oo sano ku dhawaad inuu jiro. dunidan aan joognana shariicada islaamka mooyaane wax dad ay dejiyeen oo nidaam ay samaysteen mid 300 oo sano jira oo gumeystayaashii inaga inuu gumeystay ay kow ka yihiin ayuunbaa ka jira. ma jiro qawaacid la arki kara ama la akhrin karo oo dhaqan ah oo dad ku kala toosaan oo nolosha aadanaha loo dejiyay oo ka da'weyn xeer Ciise ma jirto. sidaas oo kale kaltiris maanta jira ama taariikh la qoro oo maanta jirta oo midda Soomaalida ka weyna ma jirto. waa hagaag inta ogaal ah. sidaa daraaddeed marka aayadan qur-aanka ayuu buugga hordhiciisa ku soo qaatay qoraagu. aayadani waxay ka hadlaysaa Allah subxaanahu wa tacaala inuu sameeyey tartiibaadka sanadka 12 bilood laga dhigay. bishuna waad ogtihiin waa 3 meelood min 10 dhinaca kalena waa 4 usbuuc si kasta markii loo dhigo. laakiin sanadkaas 12 bilood markay soo dhamaadaan sanad baa dhamaaday. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu marka leeyahay إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. آية
markay soo degaysay intayna soo degin ka hor xilligii jaahiliga waxaa jiri jirtay carabtu 12 bilood sidan bay u jireen 4 bilood oo ka mid ah ayay xurmeyn jireen 4 bilood ee la xurmeeyana xilli fog bay soo bilaabatay u jirtay waxaa la xurmeyn jiray bisha xajka la aadayo iyo bisha xajka la joogo iyo bisha xajka laga soo noqonayo iyo bil la cumraysto dhaqankooda waxaa ka mid ahaa dagaaladu si u socdaan baa la joojin jiray 3 bilood ee xiriirka iyo bisha gaarka ah waa la isdhex maraya ninkii aad rabtay inaad disho baa ku soo maraya ma taabanaysid yacni dhaqanka ayaa sidaa markaa u adkaa sidaa daraaddeed markii aayaddan qur-aanka soo degtay rabbi subxaana wa tacaala 4 bilood xurmo inay leeyihiin baa la sheegay dunuubta la sameeyana dunuubta way ka weyntahay ajirka la sameeyana ajirada kale waa ka weynyahay 4 bilood 4 bilood markaa 3 way isku xigaan midna waa gaar 3 isku xigtay waa dulqacda dulxija iyo muharram bisha xajka ta ka horeysa ta ka dambaysa 3 bilood waa isku xigaan rajab waa bisha gaarka ah waa bisha ramadaan bisha ka horeysa shabcaan bay ka horeysa iyaduna Allah subhanahu wa ta'ala marka wuxuu leeyahay inna ciddata shuhur bilayaal tiradoodu cinda Allah ee baweyne agtiisa la tiriyo 12 waa 12 shahran bilood fi kitaabillah lawxul mahfuudka alle dhexdiisa ku qoran yihiin yawma maalin laga soo bilaabo bay meesha ku qornaayeen khalaqa ee bawabul as-samawati ciryaalka iyo wal arda dhulyaalka minha waxaa ka mid ah 12 bilood 4 xurumun la karaameeyay karaamo leh la dagaalamin la cibaadaysto baa ku jira dhalika midkaas 4 bilood ee xurmada leh iyo 12 bilood addiinu diinka way alqayim ee toosan diinka toosan oo wakaas ilaahay subhanahu wa ta'ala sida ayuu yiri marka sanadku 12 bilood inuu yahay mashhuur sharciyan ilaahay subhanahu wa ta'ala irkilka sameeyay baana u sameeyay tartiibta xisaabaadka dayaxa iyo qoraxduna waa kuwa wax xisaabiya saacadaha xisaabiya maalintii habeenka xisaabiya waanse u tagi doonaa inagoon dheereynaynin marka intaa wixii ka dambeeya taariikh yar oo cajiib oo hordhac ah baynu u tagi doonaa ama xisaab dhaqan waxa maartii uu soo qaatay buuga qoraagu intaa kadibna isbuuc ah yaynu baran doonaa haddana waxaan baran doonaa bilaha magacyadooda waxaynu baran doonaa saacadaha iyo graphiska sida maartay wax u xisaaban yihiin saacadu xisaaban yihiin waxaadna ku baran doontaa luqadda afka Soomaaliga waxa loo yiraahdo waxaad markaa ogaanaysaa maanta oynu joogno in aynu waxaan ka dib dhacnana u dhaqankeennii iyo cilmigeennii u yahay waxa aynu meel ku gaari kareen ummad ku soo noqon karno horta waa inaynu raadadkeennii soo noolayno sidaa daraaddeed haddii aad tahay dee qof daayarta Soomaaliyeed oo la soconin meel loo socdana haddayna u cadayn oo dagaaladan iyo burburkan ku dhashay meel loo socdayna u cadayn meel laga yimid aan war u haynin tabaana casharadan gaagaaban ku xidhnow halkana kala soco una soo ducee qoraaga buuga mudane Ibrahim Axmed Cali isagana waa mudan yahay loo duceeyo sababtoo cilmi aad u fara badan ayuu inoo dhigay insha Allah taala halkaas aynu ka qaada dhigi doonaa inta aynu ku kulmi doono qaybta xigta وأنا عبد الرحمن الذي سيدنا نبغليو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.